والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن رئيس الوزراء حلمان آمنة دمان وحي مدحة أمام مرتيا إن لجوجا شعبك سدحدان دقمو مدحدا igala shaqeysa gobolka oo aan garbahayga ah dhammaan dadka halkan la joogay martida ah ciidamada ammaankeena sugaysa dhamaantiin waxaan idin leeyahay mar kale assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. hadalkay ugu qiimaha badnaa waxa yiri agaasimaha Cabdirashiid iyo Zaynab noo tiri gobolka hadana amaan iyo ducana waxa noo fidisay xildhibaan Aamina رئيس الوزراء maalintii aan nimid waxyaabaha ugu horeeya oo aan bilowno waxa kamida bishii January magaalada marka hore inaanay biyo fariisan biyo haday fariistaan inay saacada ku baxaan marka biyaha magaalada roobkii daay wuxuu ahaa roob aan caadi ahayn ilaahay waa nagu guuleeyay way naga baxeen biyihii qorshooyin dambe oo israac raacsan oo wadooyinna waa noo lahaayeen marka waxaan jecelahay inaan wax yar oo kooban aan ra'iisul wasaare ka siiyo warbixin sida bal aan wax u sameynay iyo wadada aan marnay sida la socotaan xilligii roobaadka sanadkan wuxuu keenay caqabado waaweyn oo saameeyay nolosha dadka iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee magaalada taniya bishii Janaayo maamulka gobolka Banaadir iyo kooxdaydu waxay wadeen diyaar garow xoog leh si aan uga hortagno saameynta roobka waa dad nooga dhintay 11 qof ilaahay ha u naxariisto guriga nooga dumay qofna waa nooga dhaawac guriga sagaalna waa nooga dumeen waxaan hadda sameyn doonaa kaalmo kastoon ka geysan karno dadkii guriyahaasi ku dumeen inaan wax ka qabano waxaan si taxaddar la u qiimeynay meelaha nugul waxaan hagaajinay biyo mareennada waxaan diyaarinay adeegyo degdeg ah oo dadkaasi lagu gaari karo si kastaba ha ahaatee roobkii xoogga lahaa ee daay waxay si daran u saameeyeen wadooyin muhiima laakiin mowqifkeena waa cad yahay ma ogolaanayno in caqabadana joojiyaan ee wayna daahinayaan oo kaliya caqabaduhuna ma istaajin karaan wayna daahinayaan gobolkan qorshaan ka leenahay magaaladan qorshaan ka leenahay in ay noqoto magaalo dadkeeda si sax ah ugu noolaan karaan si nadiif ah ugu noolaan karaan ayaan ka rabnaa inay noqoto laakiin kaligeen ma sameyn karnaa waxaan u baahanahay gacantiina taageeradiina iyo sida ay idin sheegtay gudoomiyaha warta nabadda inaad ilaashataan wadada marka la dhiso waxay rabtaa ilaalin haddii aan la ilaalin ma hagaagayso biyihii way ku soo noqonayaan biyaha waxa dhibaato xoog loo keenay waa qashinka marka gudoomiyihii saddexda gudoomiye degmo ee halkan jooga waxaan ka codsanayaa kuna adkeynayaa in wadadan qaybta kaaga aadan iyadoo wasakh leh habeenkii hadii la soo maro gudoomiyo in lagu qabsado waa waajib waxaan dhiya marka ma aha mudan ra'iisul wasaare 6 wado ayaan hadda hal mar bilownay oo aan hawshooda wadnaa wadada Buulaxoobey wadada dabka ilaa Bakaaraha wadada Zoobe wadada Command Police tan Via Roma Kaxda Kaaraan wadooyin dhowr ah dhisayna waxaan rabnaa marka waxa aan dhisayno ma ilaalin karnaa anagu waa dhisi karnaa cidda ilaashan lahayd waa idinka dado haddii wax la idin qabto waxaa hagaagsan inaad ilaashataan oo iska kaashataan meeshan maanta waxaad u soo fadhiisateen inaad maqashaan in wadadan la idin dhisayo laakiin markaan halkan ku kala tagna haddii halkan idinkaga dhamaato wax macnaa ma samaynayso marka mudan ra'iisul wasaare waxaan rabnaa hadalladaadii qiimaha badnaa inaad noo tiraahdid maanta wadadan nala furtay oo aad noo dhagax dhigtay waxaan rajaynaynaa furitaankeedana inaan kuugu yeerno maraan dheerayn sidaas darteed qoraxa la joogaa waxaan u mahadnaqayaa cid kasta oo ka soo shaqaysay bahda warfaafinta ciidamada
shaqaalaha gobolka banaadir agaasimayaasha madaxda dadkii hawsha badan ka gashay dhammaantiin waxaan idin leeyahay waad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh